Hasta la victoria siempre caqayaasha. Anigu waa dhibaataysanay. Isu duceeyo. Waxa tiraahday Ilaahay qaqan soo hadeey. Caan dhalay oo codkar ah waa Soomaaligii ugu horeeyay ee bilaaba inuu baraha bulshada soo galiyo muuqaalo uu ku cabirayo fikirkiisa. Wuxuu wax badan ku booriyay ummadda Soomaaliyeed inay ka baxaan burburka. Wallahi billahi tallahi waaye. Harabana isu duceeysi. Isu duceey. Khaan oo intiina badan aad garanaysaan maanta waxa uu ku dayacan yahay dalka Jarmalka deedii oo ka daba timi iyo duruufooyin badan oo ay ugu horeyso deegaan la'aan ayaa halka ku haysata wuxuu codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan waxa la yiri nin abaal galo waa la arkaa nin gudalo ma arag waxa aan ku booqday magaalada uu ka degan yahay dalka Jarmalka si aan ugu kuurgalo xaaladiisa isla markaasna intii karaankayga ah wixii aan awoodo aan ula qabto waa soo kaxeeyay waxa aan keenay magaalada aan deganahay halkaas oo aan uga kireeyay hotel uu ku nasto muddada uu ila joogo waxa uu sheeganayaa dayac badan isaga oo sida uu ku haminayo jeclaan lahaa inuu dalkiisa dib ugu laabto tigidka ana ku goyniyo insha Allah taala waa tigid bacdama dal shisheeye oo qurba ah oo uu da ku yahay uusan ku haysan daryeelkii uu mudnaa isla markaasna aysan jirin cid ka warqabta haddii aad ku nooshahay Yurub iyo Ameerika waxaan kuugu bishaaraynaynaa in application-ka Payc uu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada siempre hasta la victoria siempre caqayaasha maanta waxa galabta waxa sharafi ah nin legend khaan dadkii hore uun baa garanaya aabaha social media inaan soo booqday magaaladiisa ugu imi isla markaasna maxaa ku yiraahdaayay aan rabo inaan israacno si fiican u soo dhaweeyo odayga waxa ku maamusayaa saa la socotaan Facebook 1 milyan aan gaaray Facebook in qof Soomaaliya ka hadlo oo video uu soo duubo uu dhigo khaan fikirka ninkii lahaa weeye ma sha Allah nin la jina soo dhawo sempre qaqayaasha la hadlo hasta la victoria sempre caqayaasha waxaan ni sheegayaa horta shiina aad buu u mahadsan yahay waa dadkii hore lama orano waa dhalinyaro oo ku yartay maxaa dhacay waxa la yiri nin abaal galo waa la arkaa nin gudalo ma arag hadduu sidoo sheegay xasuusto isoo booqday oo sharfay oo azumay magaaladii ii kaxeenay waxa oranayaa waa nin aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad noo soo dhaweeyay waxaan leeyahay dhalinyaro badan oo aan garanayo oo Dortmund joogto adinkana odaga hal la ilaaliyo waxaanu u boqolnay magaalada Dortmund khaan waa dalmar ay ku duugan tahay taariikh badan aadanna ka xisa dhacan sheekooyinkiisa muddadii aanu safarka ahayn wuxuu ii xusay in dawladii hore ay dalka dibadiisa ugu soo dirtay waxbarasho uuna jaamacadda ku dhameeyay dalka Talyaaniga markaa kadibna uu dalka dib ugu laabtay halkaas oo uu ka furtay shirkad kalluumaysi uuna burburkii ugu dhacay markaas oo uu dibadda u soo hayaamay inkasta oo uu da yahay duruufaysan yahay haddana waa mid u damqanaya dalkiisa iyo dadkiisa isagoo markasta ku hamiyaya inuu dib u arko Soomaaliya oo leh dawlad xoog leh isla markaasna soo cishatay sharaftii iyo karaamadii lagu aqoon jiray waxaanu nimi magaalada Dortmund annaga oo halka ka wada cashaynay kadibna waxa aanu tagnay hotelkii aan dejiyay Hasta la victoria siempre caqayaasha G3 hasta la victoria siempre caqayaasha G3 caawa waxaan joognaa magaalada Dortmund ee dalka Jarmalka odaygii ayaan casumay magaaladiisa Münster ka soo kaxayay caawa hotelkan uu seexan doonaa anigu marti yahay ilaa bari maaragtay ama dhowr bari uu la joogi doonaa magaalada hadda ka soo cashaynay suuqa soo marnay bari subaxaanu iman doonaa caawa halkan uu seexanaya khaan waa legend la ilaaway waa nin hal doora oo inta ay in ka badanba u qalma oo mudan waa caan dhalay waa dadkii baraha bulshada bilaabay dadkayga afku xoglayaasha ah waa dadkii Facebook waa ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee video soo dhiga waa ninkii noo iba furay ratiga ka horeeya buusaanqaadkiisa leeyahay legendkayga waa kan mar haddaan 1 milyan gaaray waxaan isri cid ka mudan oo maqaaxidaada ku soo maamuus lahayd khaan ma jiro maanta waa nin odaya waa nin dadka Soomaaliyeed oo dhan maxaan ku yiraahdaayay uga baahan taageeradaas oo amaartay ka warqab
كورهين إن الصوب إن الصوص سلامه إن لجا ورهيو دلك جرم كنوا ليه ده قربة وإسك قربة ودرين كجوب ودلش شيء دلك يعني معها أنت حوجته أردسو وقال هذا سي عشورة كقاضية وكوبا هين لكن مركز إسكويناتو نول با نكى هنول استمر ساعة فرحة إيتها ما أنت إنا حسرقنا إنا أي عشمنت هاي ما شاء الله ما شاء الله هذه لو وعني شيء هاستر فيكتوريا سامبرغ خياش ورتو على يري نن أبال قلو ينن أبال قدو لولا ويكل فوقيه أنا ورتو حان أبال قلم بلا وحوا ميديا دان كهليي أو دنيرة لهليي أو كعام بامودو كعدون دنيرة الجيل سد عادي دك بدلنا ويقدينا مركو حوا أنا ورتو قبيلات كمهلا أنا وحنا لبحي خاخام فايسنتيرا توفوتش وحنا روا كعدون هذا وحوار هون في أفريقيا هذا كلوا أمبيشن كذا كلوا كعان وكعدون وهو أمبيشن ناشوناليست أردنيرا ده عن كل رجلنيو إن الميديا ده كوضح هذا النوع كده قالنا وذلكتين فيسبوك أو حل جحري مصر بس مبارك له جحري فيسبوك أو حل جحري تونسي فيسبوك أو حل جحري يمن waxaa doonaya marka Facebook aan ka hadlayna kaliimahan waa inaan dalka soo celinaa waa inaan dalka hagaajinaa gobolada dhan iyo meel walba isku xiranaa hasta la Victoria sempre qayaashayna culu aad u mahadsanyahay berita wada hadlayna insha Allah ta'ala insha Allah habeen wanaagsan khaan oo sida uu ii sheegay hadda jira 7 sano de'da dayaca iyo daryeel xumada ku haysta dalkan waxa u dheer balwad xun oo uu leeyahay oo uusan qarsan markastana isagoo ka codsada dadka Soomaaliyeed inay ugu duceeyaan in Ilaahay ka madoobeeyo marka la sheekaysato waa shakhsi qalbi fiican oo dadku isku mid u yihiin isla markaasna hamigiisa ugu weyn waxa weeye inuu dalkii dib ugu laabto isaga oo sheegay inuu daashaday ku dul noolaanshaha dalal shisheeye oo cimrigiisa intii ugu badnayd uu ku qaatay inna Allahu malaa'ikatahu wa ala id'aa رسولك عليه الصلاة والسلام استدعي أنا ودباتي سنة استدعي واترى إلى خاص هدي آمين آمين واترى إلى سخ والله بالله طلع وهوية حرام أنا استدعي سي استدعي الميتين والعلياتين ويالكياتي إيسودعي أنا وعلى سخران إيسودعي ودنكاغينا إنا آدو أو لغاق عسيا تيجيتك أنا كو قويني إن شاء الله تعالى واتلي هورت بدا كل شيء شنو is the best ما يعذر وحبا ويلكاغي بان هاي وحبا بستميه haddii aad ku nooshahay Yurub iyo Ameerika waxaan kuugu bishaaraynaynaa in application-ka Payc uu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada waxaad kala soo degi kartaa App Store-ka ama Play Store-ka telefoonkaaga gacanta haddaba maantaba kaga maaran faylalkii dhaadheeraa ee waqtiga ka lumi jiray ee xawaalada